بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawada haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir intaasina waa codsiye markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida. warar iskhilaafsan oo ka soo baxaya dagaal ka dhacay Beledweyne. wararkii ugu dambeeyay qasaaraha ka dhashay dagaalkan ka dhacay Beledweyne ayaan idin la wadaagi doonaa. muxuu salka ku hayaa dagaalkani xoga sir ah ayaa soo ifbaxaya. barnaamij wareedkayaga ayaad kaga bogan doontaan hadduu Rabbi weyne qadaro. maxaa ka dhalan kara hor istaaga lagu sameynayo siyaasiyiinta kuwaas oo xildoon ah balse loo diidan yahay inay tartamaan. maxaa laga dhaxli doonaa haddii sidani ay sii socdo? iyana waan idiin soo baahin doonaa warbixin amuurtaasi qusaysa. xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo war cusub ka soo saartay doorashooyinka dalka iyana waa daawan doontaan. iyo musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Ciro oo weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha maamulka iskeed madax banaanida u qaadatay ee Soomaaliland. qodobkaasi oo faahfaahsan ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka. ugu horreynsa waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirtid oo channelka subscribe noo saar. muuqaalkana leegare oo share gare si uu u gaaro saaxiibo fara badan si aan u helno saaxiib sidaada oo kale u qalbi wanaagsan. gambaleelkana furo si warbixinada halkan idiin soo dhigno ee durbaba kuu soo gaaraan. haddii aad codsigayga ii tixgeliso daawada aad baan kaaga mahad celinaya. qaybta hoose ee commentiga aragtidaada qurxoon inoogu dhaaf. markana ku soo dhawaada qodobadii aad hordhaca aad ku daawateen oo intaasi ka faahfaahsan. inuu ku bilownay daawada wararka naga soo gaaraya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya inuu halkaasi ka dhacay dagaal dhaliya qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dagaalka ayaa ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada Lamagalaay halka oo ay degan yihiin madaxda ugu sareysa maamulka Hiirshabelle. sidoo kalena ay hadda ay ku sugan yihiin inta badan musharaxiinta u taagan kuraasta 12 ee taala magaaladaasi. warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya sababta keentay israsaaseynta ka dhacda Beledweyne waxayna goobjoogayaal qaar u xaqiijiyeen National TV inuu dagaalka ka dhashay kala shaki soo kala dhex galay ilaalada musharaxiinta ku sugan madaxtooyada iyo ciidamada dawladda. sidoo kale warar kale ayaa sheegaya in uu dagaalka u dhaxeeyo ciidamada ammaanka ee ku sugan Beledweyne iyo maleeshiya beeleed ka careysan in shakhsi loo xiro kursiga Hoob 10 oo hadda ku fadhiyo Cabdirasaaq Maxamed Jindi. maleeshiyaadka ciidamada ammaanka kula dagaalama magaalada Beledweyne ayaa xalay soo galay gudaha magaalada iyagoo oo warbaahinta la hadlay. waxa ayna sheegeen in ay dagaal ay ka xigaan in kursiga Hoob 10 qof loo xiro. wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in la kala dhex galay ciidamada dagaalamay isla markaana ay haddu ay xaaladdu degan tahay. waxaana halka uu dagaalka ka dhacay shir ugu socda madaxweynaha Hiirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo ku xigeenkiisa Yuusuf Hagar Dabageed iyo musharaxiinta u taagan kursiga 12 ee ku harsan magaalada Beledweyne. xoga aan helayno kulankaasi ayaa sheegaya in lagu heshiiyay inaanu kuraasa la xirin isla markaana ay musharaxiinta u tartamayaan si siman oo cadaalad ah. xaaladda magaalada Beledweyne ayaa maanta aad u kacsan waxaana maalmihii la soo dhaafay magaalada Beledweyne laga dareemaya saansaan dagaal kadib markii madaxweynaha Hiirshabelle iyo ku xigeenkiisa ay isku khilaafeen hanaanka loo marayo doorashada kuraasta taala magaalada Beledweyne. warkaasi waxyaabaha ku soo kordho barnaamijyadeena iyo wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan. markana Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka mid ah xubnaha golaha aqalka sare Soomaaliya oo muddo xileedkooda uu dhamaaday ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan doorashooyinka kadib wareysi uu bixiyay. Xuseen Sheekh ayaa dhaliila sida ay hadda ku socoto doorashada wuxuuna tilmaamay in ay dahday ayna tahay magacaabis uun ama xulasho sida uu hadalka u dhigay. senatarka ayaa sidoo kale soo hadal qaaday kuraasta la boobay
iyo sidoo kale is-hor istaaga lagu sameeyay qaar ka mid ah musharaxiinta xildoonka ah. Wareysigan ayuu Senator Xuseen Sheekh Maxamuud ku sheegay in tallaabooyinkan lagu beegsaday musharaxiinta ay keentay sadbursi iyo nin jecleysi sida tartanka looga reebo. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in arrintan ay ka dhalan karto cuquubo siyaasadeed iyo dowlad xumo, maadaama ay argoosi ku fikiri karaan siyaasiyiinta la hor istaagay. In siyaasiyiinta la isaga argoosto ayaa ka dhalan karta cuquubo siyaasadeed, ayaa ka dhalan karta dowlad xumo, ayaa ka dhalan karta, ayuu sii raaciyay hadalkiisa senatarkan. Maalmihii dambe ayaa waxaa sii kordhaya musharaxiinta xildoonka ah ee laga reebaya tartanka, waxaana ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan oo loo diiday in uu u duulo Baydhabo si uu uga qayb galo doorashada golaha shacabka. Isla wararkayaga ayaa daawanaysaani qaybihii dhexe ee barnaamij wareedkayaga ayaan isla marayna. Markana war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay maalinta caalamiga ah ee haweenka 8 Maaj oo maanta ku beegan, isla markaana si weyn loogu xusayo gudaha dalka Soomaaliya. Qaramada midoobay ayaa ugu horeyntii hambalyo guud u dirtay dhammaan haweenka Soomaaliyeed, iyadoo ay shaacisay in ay muujiyeen geesinimo iyo adkaysi. Haweenka Soomaaliyeed waxa ay soo muujiyeen geesinimo, adkaysi iyo go'aan aan gaabsi lahayn si loo xaqiijiyo sinnaanta jinsiga iyo ka qaybgalka buuxa ee haweenka ee dhammaan dhinacyada nolosha, ayuu yiri ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. James Iswaan ayaa soo hadal qaaday doorka haweenka ee doorashada, wuxuuna tilmaamay in ay muhiim tahay in la gaaro qoondada la qorsheeyay ee ah 30%. Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa xusay in matalaadda haweenka ay wax weyn ka bedeli karto siyaasadda Soomaaliya. Waxaan bogaadinayaa doorka firfircoon ee haweenka Soomaaliyeed iyo ololeynta geedi socodka doorashada federaalka ee socda si loo gaaro qoondada ugu yaraan 30% ee haweenka. Matalaadda haweenka waxa ay wax ka bedeli kartaa siyaasadda Soomaaliya, taasi oo ka dhigaysa mid loo dhan yahay oo wadar ah, ayuu yiri James Iswaan. Sidoo kale waxa uu sii raaciyay, waa muhiim in haweenka Soomaaliyeed la siiyo saamigooda ay u qalmaan ee siyaasadda iyo sidoo kale horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada. Doorashada golaha shacabka oo haatan maraysa gabagabo ayaa waxaa weli heerkeeda la rabay laga gaarin qoondada haweenka, walow ay kuraasta qaar ku soo baxeen gabdho, halka kuwa harsanna la filayo in lagu soo daro haween kale si loo ilaaliyo qoondada 30%. Isla wararkayaga ayaa daawanaysaani gabagabada barnaamijka ayaanu ku sii siqaynaaye. Markan haddii aynu eegnana wararka ka imaanaya maamulka iskad madax banaanida u qaadatay ee Somaliland. Musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Ciro ayaa ka hadlay xaaladda guud ee Somaliland, gaar ahaan doorashada maamulkaasi, isagoo oo weerar afka ah ku qaaday xukuumadda uu hogaamiyo madaxweynaha maamulkaasi Muuse Biixi Cabdi. Ciro ayaa si weyn ugu hor yimid qorshaha xukuumadda Somaliland ay ku doonayso in ay ku soo hormariso doorashada ururada, wuxuuna sheegay in aysan suuragal ahayn. Labadan doorasho ee axsaabta qaranka iyo golaha guurtida way ka dambeynayaan tan madaxtooyadooda, ayuu yiri siyaasiga mucaaradka ah ee Ciro. Musharaxan ayaa sidoo kale sheegay in haatan uusan muran ku jirin doorashada madaxweynaha, isla markaana la gelayo maadaama la joogo xilligeeda. Sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in ay ku loolami doonaan doorashadaasi 3 xisbi ee hadda jira: Kulmiye, Ucid iyo Wadani. Shacbiga Somaliland waxaan u sheegayaa in doorashadii madaxtooyadu ku mudeysan tahay 13 November ee sanadan 2022. Cid ku muransani ma jirto, cid ku murmi kartana ma jirto. Waxaa galaya oo sharci ah 3 xisbi qaran ee hadda jira, ayuu mar kale yiri. Waxa kale oo intaasi ku sii daray in doorashada madaxtooyada ay ku dhan yihiin
xeerarkii lagu maamuli lahaa iyo miisaaniyaddii lagu hirgelin lahaa. Doorashada madaxtooyada Somaliland waa doorashada kaliya ay ku dhan yihiin xeerkii lagu maamuli lahaa, farsamadii iyo miisaaniyaddii lagu hirgelin lahaa ayuu sii raaciyay. Maamulka Somaliland ayaa waxaa ka jira jiitan doorasho oo u dhexeeya xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda oo si weyn isku haya isla markaana hadallo kulkulul isku marinaya warbaahinta. Ugu dambeyntiina aad baan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. Haddii aad nagu cusub tahay daawada nagu soo biir oo channelka subscribe inoo saar. Haddii aad hore inoola joogtana aad baan kaaga mahadcelinayaa. Hana ilaabin inaad muuqaalkan like gareyso oo share gareyso oo saaxiibada aad gaarsiisid si aan u helno saaxiib sidaada oo kale u qalbi wanaagsan. Aragtidaada qurxoonna qaybta hoose ee commentiga inoogu dhaaf waa inoo muhiim. balse daawaday inta laga gaarayo muuqaalkan kiisi xiga. Rabbi idinkii nabadgelyo.